السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة يا مركلة اسكو نقشة ونكسن ما أنت أحد ونجا أحد يتهاي هذا وقلب قاب ilmahan dabaasha keenay meesha lagu dabaasho marka maxaa la hayaa ii warrama seetihiin alxamdulilah annaga maalinteen waa maalin fiican dhammaanna waxaan leeyahay qof kasta maalintiisa ilaahay u fiicneeyo insha allah way iska fiican tahay inaad galabtii haddaa jaanis haysid inaad socotid hadda waxaa hortayda socda koleyba soomaali lagaba heli maaye oday waa yeela iyo duq waa yeela oo isla socda oo isla lugeynaya yacni xilligaas da'daas intay gaaraan oday soomaaliyeed iyo islaantiisa ama xaaskiisa inay isla lugeeyaan ama isla socdaan way yarta maba dhacdaba waaba kala cararnaaba annaga ugaar maa nagala rabay ma aqaan ugaar labada hadday caawa isu aroosaan waa kala cararayaan ninkana meel u ordaa naagtana meel orda ma aqaan mashquul aan la garanayna iska keenna saaran laakiin ilaahay naga bixiya mashquulkaas noloshu way fiican tahay dadka isbarashaday ka mid tahay dadku hadday caawo dhalinyarada wiilka iyo gabadhu inay waqti isla qaataan isla sheekaystaan laakiin maxayba isla sheekaysanayaan sheekadaba soomaalidu waxay u arkaanba inay ceeb tahay ama ayna jirin maxaan kaala sheekaysanaya waan kusoo guursada gurigan ku keenay waana aad wax u xun marka wallaahi da'dooda iyo intay la egyihiin iyo siday iskula socdaan ma malay karti maasha allah ilmuhu intay dabaalanayaan adna iska soco maasha allah socodkuna aad uu u fiican yahay meelahan waxaa arkaysaa gabar yar iyo odageed oo isla dabaalanayo laga yaabo cunug yar inay haystaan cunuga marna waxaa wadaya odagaa haynayo marna gabadha haynaysa qofka markoodu dabaalanayo yacni annaga dhaqankeenna waxaas ceeb bay ka tahay laakiin ceeb ma ahan aabbuhu inuu noloshii guriga qayb ka qabto ceeb ma ahan inuu soo shaqeeyo kaliya ma ahan yacni inaan aamino inuu odagu soo shaqeeya kaliya isagoo soo shaqaynaya uu haddana tanna aas ku leeyahay ilmaha aabbihiyaa soo wadaaya dabaasha keenaya nimanka soomaaliyeedna waxaa moodaa in la yiri ilmaha waxaa iskale hooyada bis waa kugu abtirsanayaan kaliya adiga in la yiri yacni wax oo dhaqan aan fiicnayna waaye wallaahi hadda kaamirada haddaan labadaa qof ku aadiyo da'da ay la egyihiin say iskula xaragoonayaan cajiib annagana bahalla camal aan u kala cararaynaa gararar yaa rabbi maxaana kala caybsanaya maxaan kala cararaynaa maxaa nolosheenna carar ka dhigay isla socod iyo deganaan iyo maxaa nolosheenna u diiday wallaahi ma aqaanin ilaahay khayr ha ka dhigo iska lugee ilmuhu kuu cayaaraya maasha allah lugta caafimaada ku jira jaanis xilligaa u heshidba inaad lugaysid oo socotid ayaana socon jiray maasha allah wuxuu ku yidhi adiga dhan fudayd wax ku dhibayaba ma leh markaa socodka joojisina caajiska xanuunka lafa xanuunka waa yaabay adiga dhan daalka ku saaran yaa guri ka soo baxa baay kaale ila lugee intii codkayga maqlaysa ama i dhagaysan doonta waxaan leeyahay casirkii guriga ka baxa lugee subaxii lugee xilli kastoo jaanis u heshid
luge dalkii joog ama meel kale joog ilmahana in la bixiyo oo banaanka loo bixiyo soo cayaaraan soo nafisaan aaday muhiim u tahay inkastoo annaga Soomaali aan u moodinba inay muhiim tahay laakiin muhiim waay ka hadda ila luge dhammaantiina waxaan idin leeyahay galab wanaagsan waxay tahay kuu tahayba wanaagsan aniga galab ay tahay habeenay kuu noqon kartaa subaxay kuu noqon kartaa marka waqti kastoo kuu tahay baa kuu wacnaado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.